ay noqotay waa ku faraxsanahay waana ugu talagalnay inaan ka soo bilowno maanta markii aan soo marnay magaalada iyo mashaariicda iyo xafiisyada dawladana runtii wax aad iyo aad loogu farxo oo horumar ah ayaan ku soo aragnay deegaan aad isu bedelay qiyaastii 2 sano iyo bar ka hor meelaha ayaa noogu dambeysay horumar ballaaran oo ka muuqdo marka horta arintaas arin aad iyo aad ididiiro u leh waana la garanayaa asbaabta oo hadda iskama ayan dhicin qadarta rabbi ka sokow dadaal dadkan iyo hoggaankiisa ka yimid bay ku dhacday sababta ugu sii weyn waliba si gaar ah waxay ahaydii deganaanshiyaha siyaasadeed isqabqabsi la'aanta muxuu ahaay hay'adaha dawladnimada iyo dadka deegaanka deganba ay muujiyeen ayaa keentay haddii maalin walba buuq uu taagan yahay oo idaacadaha iyo telefishinada la taagan yahay oo la isdirirayo oo mashaakil ka taagan yahay ma ayan dhici lahayn horumarka maanta meesha ka muuqdahay inuu muuqdo kumana soo dhiiran lahayn in la idin kaalmeeyo kuwan ayagaaba is haystaan bar intay ka soo kala baxayaan hala dhowro yaa la dhihi lahaa dabcan ummad kastoo meel ku nool iyo maamul kastoo meel ka jiro dad tabasho qaba waa mar walba waa jirayaan laakiin tabashadaasi mid kooban oo ama hadal lagu dhammayn karo ama laga dulqaada karaba magaaladu aad ay u ballaaratay dhismayaasha iyo xaafadaha sii fiday magaalada ballaarkeeda markaad diyaaradda soo degaysaad arkaysaa sida ay magaalada u sii ballaaratay muddadii koobneed iyo sida ay uga hormartay dhinaca infrastructure-ka wasaaradihii xukuumadda dawladda goboleedka oo xafiisyadoodii sii kala midba meel sii degayso sii hagaagayso iyo nidaamka deganaanshiyaha siyaasadeed ee meelahan deganaanshiyo siyaasadeed ka jirin ayadoon colaadi jirin oo dagaal iyo isdil aanu jirin yaa haddana siyaasadda haddii la isku khilaafsan yahay yaa wax soconaya aanay jirin waad garanaysaan meelaha hadda dee khilaafyada maamulka ka dhex jira uu ka jiro bannaanka u soo baxay oo يعني culaysyada haysta iyo waxba in aanay ka qabsoomeyn 28 sano la soo dhaafay magaalada Kismaayo dadka reer Kismaayo waa ku noolaayeen si kasta iyo maamul kasta iyo hoggaan kasta kala duwanba ha soo mareena haddana maanta inta u qabsoontay marna uma qabsoomin waxa ay inta ugu qabsoontayna waa dhismaha maamul la leeyahay dadku leeyihiin iyo deganaanshiyo maamulkaas iyo dadkiisa ka dhex jirta marka aad iyo aad ayaan arintaas idinku hambalyeynaya waan idinku bogaadinayaa inaad si adkaysaan oo si xoojisaan Puntland marka laga yimaado maamulkii ugu horeeyay dhismo ayuu ahaa Jubbaland waxbarasho badan ayaa laga bartay barigaas oo maamuladii ka dambeeyay ee dhismayay lagu dabaqay sida ay Jubbaland dhismaheedii way aragnimadii laga helay ma colaad la'ayn ma isqabqabsi la'ayn ma kala shaki yarayn intii wadadii dhismaha lagu soo jiray maamulka laakiin wixii laga bartay waxa wax badan ay ka tareen maamuladii kale ka dambeeyay dhismay saddexdii maamul ee ka dambeysay ayada ay dhisantay ayaa waay aragnimadaas wax badan ay ka tartay runtii oo ay ka waxaysay marna anagu kumaanaan doodaynin maamulka haddii la dhiso inuu noqonayo mid oo xoog badan oo arada waxay laakiin inuu korayo oo soconayo korriimadina hadda way ka muuqataa marka waa arintaas aad iyo aad ayaan runtii ugu farxnay waana arin qadarin mudan dadkii sameeyayna waa idinka iyo dadka aad mas'uulka ka tihiin dadaalkaas yaanu idinla yaraanin hal si xoojiyo hal si kordhiyo aad iyo aad loo sii kordhiyo dadka hal isku hayo kii tabasho qabana tabashadiisa laga jawaabo oo hal la dhageysto oo hal la qadariyo kii kalena hadda waaba socdaayo horaha loo sii wado taas waa midaas dabcan mushaakilaadka dalka dhan uu qabo ayaa Jubbaland dhinaceeda ka qabtaa oo nimanka nabadiidka ay ka mid yihiin dhibaatada ku hayo dalka oo dhan guud ahaan dhaqaale yarida dalka ka jirto dawladnimada Soomaaliya oo guud ahaanba maalin walba soo kordhaysa marka duruufaha dalka lala wadaago dhan marka laga yimaado inta adika idin gaarka mid ugu muhiimsan
waade un nimankan nabadiidka in dalka laga xoreeyo marka taas waa midnimada ugu weyn u baahan maadaama hadda masaalixda iyo wanaaga ay leedahay midnimada siyaasadeed iyo deganaanshaha siyaasadeed ay muuqato inta dhimanna ayadaas un baa lagu gaari karaa in la sii xoojiyo la waxeeyo intaa kadib dalka Soomaaliya dawlad dhisidiisa safar dheer ayay soo martay 18 sano ayay haatan maraysaa maalintii nidaamkii carta laga soo bilaabo oo dalka dawlad ugu horeyso ku meel gaarkeed burburka kadib dalka la dhiso 18 sano dawladda hadda jirta teeramkeedan 2020 ku egna waxa waa 30 sano yaan gaarina marka 30 sano oo duruufo gaar ah ku jirnay waxa ka horeeyay 30 sano aan dawlad ahayn 60kii ilaa 90kii dalkan dawlad hanata dalku lahaa sida aan sheegay mar walba tabasho waa jirtay dawladdaas dada dib ku haysay dibsanayay ilaa markii dambe wixii weynaa dibka badnaa ay dhaceen 30 sano ku xigtayna 10 sano dagaal sokeeyo joogta ay socdeen iyo 18 sano oo 20 sano u socota hadda oo ayaduna dawlad dhisid ku soo jiray wax badana soo qabsoomay waayahaas laakiin waxa noo qabsoomay wax ka badan in noo qabsoomaan rabnay waxa aan gaarnay laga soo bilaabo carta lagu soo xijiyo maxaan ku raay Mbagathi lagu soo xijiyo maxaa dalka dhaxdiisa dawladii inay jawhar tagto inay baydhabo tagto markii daba villa Soomaaliya oo muddo dheer burburka kadib dawladda ay tagin madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Allah u naxariistay inuu dawladnimadii keenay Sheekh Shariifna inuu markii dambe magaalada Muqdisho oo shabaabku ay qabsadeen iyo agaarkeedan uu ka saaray ku meel gaarnimadii dalka uu ka saaray oo dawlad aan ku meel gaar aan ahayn ay dalka ka dhalatay annaguna intii aan kari karnay waa markaa duruufta noo saamaxdaan ku darnay waa tan maamul goboleedyadii iyo ay dhismeen oo doorashadii halka meel ka dhacday Muqdisho ka dhacday 2012 inay 6 meelood oo kala duwan oo dalka kamid inay ka dhacdo 135 oday khayr Allah siiye oo soo aasaasay soo bilaabo waxaan in laga gudbo oo ilaa 14 iyo 15 dad ku dhow ay wax doortaan inkastoo wali qabiilkii la joogo hadana qabiilka dhaxdiisa xataa lagu tartamo in la yiraa 2020 insha Allah waxaan rajaynaynaa meeshaas meel ka sii inay gaarto hadii la yiraa oo deegaanada la iska dooranayo 6 deegaan hore ay ka bataan tirada dadka ka qayb galay doorashaduna ay 14 ka bataan hasaasna ay muxuu ah sii korto hasa yeeshee 30 sano cimriga bini aadamka waqti aad u dheer waay laakiin cimriga ummadaha 30 sano kuma dheera ummaduhu 100 sano iyo 10 sano ayaa cimrigooda iyo lagu qiimeeyaa marka haddii 30 sano aan dawlad ahayn 30 sanana aan duruufo gaar ah iyo culays iyo dhibaatooyin aan ku jirnay mas'alada maanta ninka Soomaaliga ah ee mas'uulka ah ee aqliga leh inuu ku fikiro ay tahay waxa waaye 30 sano dambe xagee gaarina 30 sano ee 2020 ka dambaysa ee 2050 ku eg Soomaaliya xagee gaaray Soomaaliya noocee ah ayaan rabnaa 2050 oo in badan oo hadda galabta meeshan dadka fadhiya kamid ah aanay gaari doonin oo muxuu ahay waa tii la yiri guuleey haduu ku daayo gugaagan ku daynin oo cimrigeenba aanu muxuu ahay inuu noo saamixin laga yaabo inaan 2050 aan joogno hadii aan joognana dad wax tar laho talo laho inaanan ahayn ay u badan tahay marka laakiin waa talo masiir ummadeed oo in la qaabeeyo u baahan intaad adigu nooshahay laguma qaabeeyo laguma sareeyo ummadda wax tarkeeda iyo wax qabadkeeda adiga ka sii gadaal maxaad muxuu ahay gurigaaga ilmahaaga maxaad ugu mashquushaa oo hanti ugu tacabtaa oo aad wax u bartaa oo aad muxuu ahay u wanaajisaa berri gadaashaa nolol fiican inay ku noolaadaan dad fiican ay noqdaan oo diinta iyo dadkaba wax tara waayo waxaad ugu daarayso ummaduna waa sidoo kale
waxay u baahan tahay adiga gadaashaa inay wanaag ku noolaato iyo sharaf iyo karaamo maanta inaad ka shaqayso ummadda guud ahaanna waa sidaas oo waa sida qoyskaaga oo kale marka maanta dadka Soomaalida ee Ilaahay zamankoodii uu ka dhigay ee nool mas'alada u taalo waa taas Soomaalidu hadda ka hor ayadoo intaan ka tabar yar ka aqoon yar ka hanti yar ka maxaan ku raadayay ilbaxnimo yar oo ka waaya aragnimo yar ayaa niman dhalinyaro inta u kaceynay dhahayn Soomaaliya meeshaasaan rabnaa inay gaarto Soomaaliya noocaas aan rabnaa gumaysiga dalka haystay afartameeyadii niman dhalinyaro oo 15 oo aan shahaadooyin waaweyn iyo hanti badan iyo aan haysan ayaa inta shiraya waxay yiraahdeen waxaan rabnaa Soomaaliya xor ah oo midaysan shanta Soomaali oo qaran ah oo dawladaha adduunka ka jira barbar taagan oo heybadaas lahaan rabnaa Soomaalida ay sawireen dadka Soomaaliyeedna waa u sheegeen Soomaalida noocaas aan rabnaa si aan u gaarno waxay yiraahdeen cadawgaan aan leenahay 1 2 3 aan ka leexano hadii kale hadii aanan ka leexanin ma gaarayno Soomaaliya isqulubin wixii ugu weynaa tilmaameen wuxuu ahaa qabiilka siyaasadaysan siyaasadda iyo qabiilka aad uga hadleen waxay ku guuleysteen dadka Soomaaliyeed in ay qabiilka ka fogeeyaan ayagoo waa la mamnuucay iyo waa la joojiyay iyo qofkii ku hadla waa la xirayaa iyo waa la dilayaa iyo aan la dhihin ayay shanta Soomaali meel kasto ay jooga ka jigjiga jooga iyo ka gaariso jooga iyo ka Lowyacda jooga inta ka dhaxal yaa waxay ogoleysiyeen in ay qabiilku in uu dawladnimada iyo xorriyadda iyo Soomaalida quruxda badan rabo inuu caqabad ku yahay marka inaanan loo waxayn oo dadku ay ka xishoodaan reer hebelaan ahay inuu yiraa oo qof safraya haduu daagaan yimaado oo guri yaa reer hebel oo magaaladan degan aanu dhihine oo yiraahdo dirsoonka leegada hal geeyo halka lagu marti geliyo oo dago intuu martida yahay waa ku soo caanamaaleen meeshii ay rabeen waa gaarsiiyeen Soomaalidii xorta ahayd ee adduunyadu ay la baratamaysay oo sharaftay karaamada lahayd waa soo gaarsiiyeen intii ka dambeysay dadkii marka ka dambeeyay ayaga qaar badan oo kamid ah Soomaaliya ayaan gaar xorriyadii oo intaan xorriyadiiba la gaarinay yaa ay Ilaahay oofsaday qaarna way soo gaareen qaarna annagaaba soo gaarno ayagoo muwaadiniin caadi oo shacabka isaga dhex jiro oo wax gaar ah oo heybada iyo abaal gaar oo hadda ay ku qaateen laakiin wixii ay rabeen in ay xaqiijiyeen oo ay maxaan ku iraahday ay dalka ay gaarsiiyeen hadafkii ay rabeen taasa qanaacada ugu weyn oo maxaan ku iraahday gaareen u ahay qanaacada ugu weyn oo gaareen taasay markii dambe ayagoo muwaadiniin caadi ah xorriyadda hadii la qaatay qaarkood waliba nololda iska hoose ay ku nool yihiin dalka joogi jireen laakiin dadkii ayaga ka dhaxlay ee ka dambeeyay ayay ahayd ummadda haddana inay u sii sawiraan dawladnimada ay yiraahdaan sanadahaas hadii la gudbo Soomaaliya noocaan aan rabnaa waxaana caqabad ku ah aan ka leexano wadadina waa taas aan maro meesha Soomaaliya noocaas aan gaarno tii ma dhicin tii markay dhici weydana dadka gadaalay u noqdeen awalba qabiilka waa laga keenay qabiilkoodii u noqdeen waad xasuustaan doorashadii 1969 dhowr xisbi inay ka qayb gashay oo kulligood aan wada garanayno oo jufa ah beelweyn xataa aan ahayn jufa hoosa laana qofka Soomaaliga ah meesha uu ka tirsan yahay waa qabiilkiisa marka hadda maanta taariikhda dib bay soo qortaa waxaana looga baahan yahay waxay tahay inaan saadaalino Soomaaliyada aan rabno Soomaaliyadaas marka 18 sano iyo 18 sano hadda aan tilmaamay inta waxaan isku dayaynay inaan dawladnimadii helno Soomaalidu waxay ku maamaadaa caloolo waxay ku boqoto laguma daaweeyo calooshaan caano geel intaad cabto haddaad ku jirratay caanihii geelaan sii cabaya waa kusii daaweynaya ama hilibkii sii cabaya waa kusii daaweynaya madii waana daawo kale annaga dalka dawladnimadiisii markii aan dawladda inaan la dirino aan go'aansanay tuulkii ama aaliyadii aan qaadanay ee aan ku kala furfurnay dawladnimada wuxuu ahaa qabiilka
ciidan kan qabiilaynay maamulkan qabiilaynay siyaasadda waa qabiilaynay dawladdiina waa kala furfur nasiib darro dawladdii dib loo dhiso oo hal isku soo celiyaa la yiri tuul kalaan weyne oo aan wixii dawladdii haddana aan ku dhisno qabiilkian u noqonay marka waxaan noqonay dadkii calooshu waxay ku bukootay ku daaweynay yaan noqonay ilaa maantana waa joognaa dhibaatadiisa waa arkayna qabiilku annagaas meeshii uu lahay meelaan ahayn aan u isticmaalaynaaye ma aha inuu xun yahay laakiin meeshii uu lahay ee uu ku fiicnay oo saxda ku ahaa meelaan ahayn aan u isticmaalno marka inta waa la sheegay waa la garanayay waa la lahaa war ama qabiilka muxuu ahay aanu wax noo saxeen siyaasadda markay timaado oo aan ka leexinaayo wax kale ka raadinaa oo asaguna meelihii uu ku fiicnaayo lahaa aan ku aadinaa laguma guulaysan adigu sidii loo soo wada hadda marka waxa la yiri xisbiye siyaasadeed balaan aad xisbigii reer hebel hadduu noqdo waa guul darro kale xisbiyadu xisbiye Soomaaliyeed inay noqdaan la rabaa Soomaali xisbi Soomaaliyeed oo Soomaali ay ku wada jirto ha u kala badnaato haday doonto deegaanadu ha u kala badnaadaan waxa laga yaabaa xisbi muayyan oo gaar oo in xisbiga qurac la yiraahdo inuu kun qofood magaalada Kismaayo ku lahaado magaalada Muqdisho 100 qofood oo ku lahaado waa macquul ama Baydhabo inuu 100 qof ku lahaado ama muxuu ahay deegaanadaas kale wax laakiin waa inuu ku lahaado meel walba dad laana mabaadi iyo aragti siyaasadeed waaye xisbigan waxa uu wado aragtidaas dad aaminsan oo raacsan meel ah ku yaraadeen meelna ku badnaadeen waa inay jiraan laakiin deegaan kasta waa inuu joogaa waxa la isku raacayana waa tol siyaasadeed ee tolki dhaqanka ahay ma intii isku aragtiya isku fikra Soomaaliyadaas aan sheegay isku si inta u sawirato isku wada inay marto ay ku raadiso isla garata intaas muxuu ahay tol siyaasadeed isla ah oo isku imaanayso marka aan rabnaa mashruucaas inuu hirgalaan rabnaa marka inuu dhaqaaqo oo dalka bal dhinaca loo leexiyo aragti iyo fikir iyo talo meel kaga wanaagsan Jubbaland oo barnaamijkaas laga bilaabi lahaana ma jirto sababaha aan u nimiday Kismaayona koow ay ka tahay sababtoo ah Jubbaland waa Soomaaliya yar waay oo Soomaalida oo dhan oo deegaanada kale ee Soomaaliyada ay balaaran degan oo dhan halkan waa degan yihiin ha ku kala badnaadeen ha ku kala yaraadeen laakiin deegaanadan Jubbaland la isku yiraahdo oo dhan 4.5 waa wada joogan kulli meel ay ka maqan yihiin male meel ay ku yar yihiin meel ay ku badan yihiin dhulka Soomaalida dhamaana sidaas qabiil kasta qabiilka inta ku badan meel kale ku yar yahay midka inta ku yar meel kale ku badan yahay waa dabeecadda dhulkeenu uu sameeyay yahay iyo mujtamaceennaba sida ahba marka maadaama Jubbaland marka deegaan sidaas ah oo Soomaaliya ah oo Soomaaliya dhan ah inaan nimaado oo aan horta u sheegno dhahno meeshaas cusub ee loo guurayo siyaasadda ee ah barnaamijka xisbiyeysan annagu kamidanahay xisbiyana leenahay halkaan aan ka bilaabeynaa oo aan nimiday inaan dhahno waa soo go'aansanay asbaabta halkaan u nimiday kamid yihiin akhyaarta marka xisbi leeyahay midowga nabadda iyo horumarka oo nabadda in loo midoobo horumarkana loo midoobo oo dalku meelna aanu ka horumarin meelna aanu ka dib dhacsanaanin meelna aanay nabad haysan meelna aanay nabad la'aan ku noolaanin ay tahay aan wadnaa fikirkiisa iyo taladiisa iyo wuxuu aaminsan yahay mabaadida uu ka duulayo iyo ahdaafta oo hiigsanayo ayadoo tafaasiil laho maxaan ku iraahdaa qoran oo laga doodo laga sheekaysto oo la iswarsada keeni doona laakiin safarkeena waxaan rabnaa horta inaan xisbigaasi aan aasaasnay oo jiro inaan idin sheegno idin kana codsanno afkaarta xisbigaasi uu xambaarsan yahay oo fikir Soomaaliyeed ah oo fikir reer hebel iyo fikir deegaan gaar aan ahayn in lagu garab istaagana waxaan u nimido codsanayna waay intaan farsamada iyo wuxuu maxay yihiin iyo bal kala hal kala qaad aan la dhigin horta mabda'a guud ee Soomaalinimada ah ee nabadda ah ee horumarka ah ee midnimada iyo in la midooba ah
waaye muxuu ahaa xisbiga aan wadno maalintiisaan soo bandhigi doonaa aan dheerayn xafiisaan halkan ku yeelan doonaa realitiga xaqiiqda dalka maanta uu ku sugan yahay oo ah nidaamka federaalka oo ka hana qaaday dalka waan rabnaa inuu ka sii hana qaado oo sii xoogeysto yaa asal iyo sal u ah xisbiga annagu aan aaminsanahay xisbi hal meel ka jiro hal meel looga taliyo meeshaas laga soo kala amro ma ah sida jamhuuriyaddu ay dowlad goboleedyadu ugu kala qaybsan tahay kadibna dowlad dhexe ay u leedahay oo kale yaan rabnaa fikirka xisbigaani inuu sidaa oo kale Jubbaland uu ka jiro gudoomiyaheeda uu ka yeesho golahiisa dhexe uu yeesho gudigiisa fulinta uu yeesho xafiiskiisa garabkiisa dhalinyarada garabkiisa haweenka garabkiisa xirfadleyda halkan dadka degan ay ka yeeshaan kadibna meel kasta asoo sidaa u dhisan inuu isku yimaado xisbiga oo mid heer qaranka ana markaa oo sameeysto isagu yaa madax ka noqonayo yaa maxaan ku iraahday goriisa dheer qaran u yeelanaya gudigiisa fulinta heer qaran u yeelanaya laakiin dadkii deegaanada ka yimid oo isku yimiday yaa waxa sameeysanaya ee wax sameeysan oo meel yaalo oo dadka meesha saalada ka xukumaa la leeyahay maana dadka meesha laga xukumaya iyo dadka xukumaya dadkaani dad ay dirsadeen sida halkaan baarlamaanka federaalka ee labada aqal ka kooban dadka ku jiraba sida halkaan looga diray oo koonfur galbeed looga diray oo Hirshabeelle iyo Galmudug iyo Puntland looga soo diray sidoo kale aan rabnaa xisbigana dadka xukumayo oo taladiisa hayo oo hogaaminayo dad deegaanadaas ka wada yimiday oo Soomaaliya dhan ah oo laakiin deegaanka ka yimid oo inta soo noqdo deegaankiisa iman karo oo wartaladaana la hayaa Soomaali sidaana la rabaa in wax loo qaybiyo maxay idin la tahay dadka dhigi karo koo dokumenti aan sameynay waxbaan soo qornay mabaadidiisa iyo ahdaaftii iyo wixii aragtidii waa soo qornay laakiin de ayado kitaab munazal oo Ilaahay ku soo dejimay waa fikir la isku keenay wali waa furan tahay in wax lagu daro iyo in wax laga dhimo intaba oo marka wuxuu dhulka ay yimaadeen oo dadka ku dhaqmi lahaa ay u yimaadaan yaan rajaynaynaa waliba in ay dadkaasi wax badan ku dari doonaan wax badan ay ka hagaaji doonaan marka khayrta marka la idin mahad celinaya asbaabta ugu weyn oo meesha u nimaday xisbigana way ahayd dabcan inaan idin la wadaagno jiritaankiisa waxa kale oo ahayd wanaaga iyo horumarka socdo inaan aragno waxaan aragnayna waxay nagu sii dhiiri gelinayaan inaan sii xoojino ka shaqeyno dadka ku wacyi gelino dawladnimada mustaqbalka ah lagu saleeyo lagu raadiyo nidaamkan federaalka ah ee dawladnimada iyo xukunka dadka loo soo dhaweynayo dadka la xukumayo ee Soomaaliyeed talada iyo nidaamka in loo soo dhaweeyo maanta wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubbaland aan tagnay madaxweyne ku-xigeenka la socday meesha waxa looga dhawaaqay mashruuci ahaa in deegaanadii councilskii iyo gudiyadii maamuladii deegaanada in la dhisayo oo dadku ay deegaanadoodii dhisanayaan maamulkoodii iyo cidii hogaamineed dawladda Jubbaland ay saacidayso oo ay fududeynayso ay ka qayb galayso laakiin sida mabda'a federalismku uu yahay deegaanada dadka degan inay ayagu isu yimaadaan oo ay maamulkooda dhistaan ay tahay marka waa rajaynaynaa taasna mashruucaas inuu hana qaado wax kale oo dawladnimada dadka loo dhaweeyay inay deegsmay ku ekaato maana inay deegaanada tagto maanta intii ay suurtagal tahay berrina intii kale suurtagal tahay la gaarsiin doona marka taraakumkaas tartiibka ah ay ku socod doontaa wax aad iyo aad diidiila kale oo sii socoto waay marka khiyaarta intii horena waana ku amaanantiin waana ku mahadsantiin aad soo qabateen inta dhimanne waa in idin taaloon aad idinku boorinayno in aadan dad kale iyo cid kale aadan ku halaynin aad u istaagtaan sida uu si dhaqan gali lahaa sidaasna ma aha deegaanka Jubbaland kaliya ee danta Soomaaliyeed oo dhan ayaa ku jirta aad iyo aad u mahadsantiin